markana falanqaynta ciyaaraha toddobaadkan maxamed axmed daysane stuudiyaha idinloo fadhiya daysane aan ku bilaabano horyaalka ingiriiska halka sare ayaa lagu dagaalamaya Manchester City maxaa la yiraahdaa Chelsea Liverpool xitaa inay cariisatay rabtaa waxaas oo dhan waa lagu soo wada socdaa yaa la fila sida aan la socono week hore Chelsea ayaa hoggaan ku haysay taasoo hoggaankeedii ka dhumisay kooxda West Ham oo 3-1 u adkaatay waxaana la soconaa Chelsea muddo dheer inay soo waday taasna ay u keentay qaladaad ay galeen oo ayaga looga adkaado Manchester markii leena qalad sidoo kubadda cagta qalad waa la galaa laakiin haddii aad ku gashid goolkaada afka hore dhibaato weyn ayuu leeyahay taasana keentay Chelsea inay dib u dhacdo Liverpool iyo City ayaa ka faa'iideystay City ayaan hadda hoggaan ku hayso mana u maleynayay City iyo Liverpool inay hoos u soo dhici doonaan waqtigan dhow ma jirtaa rajo ay Liverpool leedahay inkastoo Chelsea iyo Manchester City iyo ay yihiin kuwa hadda aad loo saadaalinayo sidaan la soconaa Liverpool waa kooxda ugu dhalinta badan Premier League xagga gool dhalinta oo waxaan la soconaa Mohamed Salah iyo Mane iyo Jota inay gool dhalinta ay joojin laayeen marka waa koox niyadeeda aad u fiican tahay sanadkii oo City markay qaadi jirtay waa kooxda ka soo dhax gashay oo horyaalka qaaday sanadkaana sidoo kale ay rabtaa inay ka dhax gasho marka waxaan qabaa haddii January aysan Mohamed Salah iyo Mane aysan Afrika ka aadin in Liverpool rajo weyn ay leedahay kooxda aan uga cabsanayo inay tahabo haddaan halkaas kaga gudubno Arsenal xalkeeda ma fiicna dhibaatada macalinka mise ciyaartooyda xoogaa farsamadooda liidata Usman waxa u malaysaa labadaba inay iswataan oo sida aan la socono tababarihii hore Omri 18 markuu joogay ayaa laga bedelay Arteta markuu yimid kooxdii hore oo Omri oo ka dhaxlay way ka fiican tahay kooxdan way ka tahay fiican tahay dhalinyaro fiican oo keena laakiin dhibaatada jirto waxay tahay markay soo badiyaan soo kacaan haddana waxa u malaysaa markay banaan ku baxaan inay guul darro la kulmayaan taageerashan ay qaylinayaan asan loo ogolayna ninkan oo la leeyahay Arteta dhalinyaro yar ayuu hayaa Smith Rowe kale Sako kale dhalinyaro yar inuu wax soo baro oo soo dhiso isla markaana ay guul keenaan markii labadii wax ayaan isqaadanaynin ina qofkii tayadiisa soo dhistid guulna aad keentid labadii ayaa Arteta isku qabsan la marka waxa u malaysaa Arsenal culays xoog leh inuu saaran yahay lacag badan ma dhiibaan oo ciyaartooy waaweyn ma soo gataan dhalinyaradina waxa u malaysaa in aan tababari fursad la siinay laakiin ma u maleynaya Arteta inuu muddo oo sii joogay ciyaartan waxa uu imaan doonto Southampton hadduu Southampton ka badi waayana culays waa ku sii kordhi doona waa tahay lacagaad ka hadasho ninka reer Arsenal lacag ma bixiyana tiri Liverpool Mohamed Salah la jooga lacagta uu qaatana waad og tahay ciyaartooy caalami ah inuu yahay marka 18 bilood ka harsan qadaraaskiisa ma laga yaabaa inuu lacag badan sii rajeeyo meel kale aad kullee waxay ogtaa ciyaartooyga Hollandeeska Waldaman waa laftigiisa waa PSG ka aaday oo lacag doontay waxaana qabaa aniga Mohamed Salah inuu gaaray hadda 20 gool inuu dhaliyo bishii December 7 inkastoo dhaliyoodii weynaa Ian Rush oo numberka 9 ka dheeli jiray oo bishii November 7 20 gool hore u dhaliyay taariikh ahaan ciyaartooy kale Roger Hunter liiji laftigiisa 25 November oo 20 gool iyo dhaliyay marka la Salah ragii ku soo xigsaday waxaan qabaa Salah hadii uu ka tago ciyaartooy numberka 9 inay Liverpool keento waxay ku qaadan kartaa 100 milyan ay ku qaadan kartaa marka waxay ku qasban yihiin inay heshiis la galaan ay mushaarkan u badiyaan ay lacag badan ay siiyaan maxamed axmed daysane aad baad u mahadsan tahay maanta intaas ay waqtiga noo saamaxay inaan kaga hadalno ciyaaraha